أرنتها مركا وحلاه كديران مايه الله يدين لك قوليو dadku badankood way wada baahanyiin arinta way wada baahanyiin laakiin waxaan isleeyahay reer raas xasee Puntland odaga hadda magaciisa ma xasuusta hadda iga horeeyo laha Puntland على شرط ما واحد شيء يضيق كلام والله بدلان وماشى مقع راس عساق بدلان جيت كم يدق يدقون كي وحى مركا وحق برقة بوران سلطان خليف وحوي مركا هذا كله هدي مرة كده وحلورها رارك هذا ماشي النقلة وحرم علينا يدب بدنا نروح هنا حاجة وجوري دونان waxaan kaloo leeyahay kulli cadaalad xumo haddaad tirsateen waa la idiin iman doonaa dee cadaaladda ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeedna waa mid quruxda badan oo wax lagu noqdo oo wax ku ahaan jiray oo maanta Itoobiya iyo hadda Soomaaliya Itoobiya wax ka sheegto way ka cabsataa laakiin anigu hadda waxa weeye macna ma leh Itoobiya Soomaaliya wax cadow inuu ahaa Itoobiya laakiin maanta taladan Itoobiya ku jirta qoladani waxaan isleeyahay ma bay tegin Itoobiya anigu waan jeclahay ninkan Itoobiya aan laga soo siin mandate-ka wax ku noqonayo waan ka jeclahay dadka kale marka midnimada Soomaaliyeed muqaddas weeye waxaan idinka ilaaway waligaan maamul goboleed ma tegin xataa Puntland shirarkeeda ma tegin laakiin xogogaal aan ahay baan u imi shirkan وwaxaan iska ilaaliyaa maadaama ismada Soomaaliyeed afayeen aanu ahay oo inay yiraahdaan waa talax tigoodaba hadduu meel walba iska tago wala la bayga tray marka tan ogolaanshaan ka haysta midaan ogolaanshaan ka haysta waxa weeye marka ميكروفونكم وانا ku hadlay aqoon balaayada waxa weeye intaasna ka hadli jiray hadda ila yaabtaan hay waxa weeye way ugu cusubay waxa weeye marka arinta waqtiga waxa weeye midnimada Soomaaliyeed muqaddas weeye dawladda Soomaaliya oo la leeyahay habeenaha u haray oo hadda xoogaa yar dhaqdhaqaajisay oo Itoobiya ilaahay ha joojiso qoladana qolo wax qabanaysa war ma ugu darnaa inaga inay ka goday halka sano ma ugu darnaa halka sano hadda waxay la tahay in warkaas gaari doono beesha caalamka oo inaga hadda taladeenu ku jirto warkaasina waa gaari doonaa waxa la yiri ana haray looma hadlo aniga dad iga aftahansan oo iga hadal yaqaansan oo iga aqoon badan baa hadlay arinta damar waxa la hadlo magac ama kacday ama kuursatay arinta niman la yiraahdo SSC Soomaaliya waxa iska jeclay hadii qabiil xataa la yahay inaan qabiil uusan gumaysan baan jeclahay hadii Soomaali la yahana dawlad Soomaaliyeed la ahaado marka qolada ila SSC baa yaama dhaw lagu soo duulayo qolo kale ku soo duushay marka waxaan iska jeclaan lahaa waaga hore laba maamul baa kala qabsaday waxa la dhigi jiray hadalka ayaa la dhibsan qofkii cadaaladda taageero oo Ilaahay raali galiyo binaadka waa raali galiyo marka waxa Puntland yiraahdeen walaayo SSC waxa isku kaaya dirayaan anaga iyo Somaliland marka hadda waxay la tahay iyaga waa la tuuray waxay leeyahay SSC na tashada aliyo hal aaminsan maamulada tamiyo iska hadhowdi oran hadda bar way maqlayaa war dawlad baana war midnimo Soomaaliyeed ku raadiyo maalinta dawlad Soomaaliyeed istaajisan shaqooyinkiina professional baata waan ku aqaan walba shaqadiisa doonto isugeeyo umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maamulka Asayr
إلهي إذن كهجوليستو وجوين كيس هجارو مراد كيس عن معصية هاي وناكسن ويصيده ونوشة الله كجوليو سومالينا هم يدودو سوماليا هم يدودو إثيوبيا يدك عدو قنوة ضلالك نجاها يستوكية ينا إلهي هوستو هاي نجسار إلهي هوستو هاي نجسار وحنسكتش على أنا قلنا وربض ما قانع عن معركتي الدعاء كلي الله يديره مركوا وهديه وانسكت الصديق وحوي إلهي توفيق هاي وافجيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد القادر هذا يوم مهتسيا مع السلطان هذا القيمة بدنا هكا وإنه يسوي جدي كنتي مهمة رأس عسير استيد الصومالي الله بيسوي حويان كريه إن شعبك الصوماليين يكونوا الجوبها إلى الله ولا الجوبال بينا يقولوا إن وحقوت وسووا حوهل وحتركوا يزيد اللغة شغال لها سيد وهل لها الأديين بالشدة ورطي عقليو ضدك أقوم تقول لوكا إنه آدي هو آدي هاي لامبيجا كي ماذا مقدشوا وحوكوا إلى مجالنا بوساسو جوارد هالك تكتنا وجوارد بيك لا دجالك برعد بدأت يتوجد إيو إن يسميان عيدا بوليسي عيدا ملتري كشقيا نبض سوق الروكاس runtii waxa uu dhulka noqday dhul hadda beesha caalamka indhahooda runtii ay soo jiitaan kadib markii ay arkeen nabadgelyada ma aha dad caraysan ma aha dad maamulka carooday waa dad u tashtay aayahooda waxa dhulka lagu tiriyaa dumarku inay ka cabsadaan inay dhalaan maxaa keenay isbitaalada oo runtii loo bedelay guest house meel ay seexdaan dadka loo bedelay marka taa darteed ayaa waxa ay ku kaliftay dhalinyarada Raas Caseer State isu taagtay in ay maaragtay ka bixiyaan bulshadaas dhibaatada ku habsatay ayna codkooda u gudbiyaan beesha caalamka taa ayada ayaa halkaas ugu manacay warbixinta ayada oo faahfaahsan waxa runtii aan la sugayaa madaxweyne ku xigeenka Barra Faatax oo runtii faahfaahin aad u ballaaran naga siin doona arinta